عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحنا aad ayaad u mahadsantahay akhyaarta sharafta badan ee labada gole iyo la taliyaasha madaxweynaha intaba aad iyo aad ayaad uga mahad celinayaa soo dhaweyntii iyo qadarintii iyo maxaan ku yiraahdaa martigelintii intaba aniga iyo wafdiga ila socda intaba dawladdan dawlad goboleedka Jubbaland marka laga yimaado Puntland oo horay u sii dhisnayday federaalka bilowgiis meesha laga bilaabay ay ahayd dhismaha dawlad goboleedyada ragii joogay waa joogan waa hawl aad u sahlan oo lagu soo boodo markiiba hore ka qabsanta ma ahayn hawl wada dheer soo martay oo marar badan la isku qoomay oo marar badan muxuu ahay wada hadal dheer laga galay ahayd laakiin waaya aragnimadii aan ka kasbanay dhismihii maamulka Jubbaland wuxuu aad iyo aad u fududeeyay kuwa kale dhismahoodii wada xaajood isu dhaganuglaan iyo fikirka oo la isku qadariyo waxay ahayday waxyaabaha aasaaska u ahay in lagu guuleysto in dalku maamulada ka dhismay ay ka hana qaadaan dabcan dhismaha nidaamka federaalka iyo dhismaha dawlad goboleedyada dalka ka jira intaba asaas dhigiday ahayd guri dhameystiran ma ahayn asaaskii oo la dhigay oo nidaamka federaalka asaaskiisii oo la dejiyay ay ahayd laakiin dhismaha guriga intiisa kale waa socotay hawl socotay ahayd welina sii socoto oo maxaan ku yiraahdaa wax badan ay u dhiman yihiin ma filayn marna in maamulada markay sameysmaan ay hore inta ka dhaqaaqaan ay noqdaan laakiin waxaan filaynay wax dhashay oo koriimo u baahan sunnada noloshana waxa kamid ah waxa ay dhashaan ama waa inay koraan oo ay horumar sameeyaan oo hore u sii socdaan ama waa inay meesha ku istaagaan oo dhintaan oo aanay sii jirin laakiin wax meesha ay ku dhashay joogi kara ma jiraan maanta Jubbaland magaalada Kismaayo midaal hadaan ka soo qaadno sida ay u taalo ayaana cadeyn u ah koriimaha maamulka uu koreeyay berigii maamulka la dhisay magaalada Kismaayo sida ay maanta tahay isu dhow midna ma ahayn magaalo aad u balaaratay shalay markaan soo degayna magaalada kor ka fiirinayna ee meesha ay sii kala gaartay meel dhow oo maxaan ku yiraahdaa ma aha magaalada yaani horumarka kor facility-gaan maalintii Jubbaland lagu dhawaaqay ma jirin iyo kuwa kale oo fara badan golaha wasiirada dhismayaashooda shalay aan soo agmaray oo la soo leeyahay dhismayaashan cusub maxay ahaayeen markaan in la yiri waa xarumaha wasaaradaha qaarkood yaani waxa soo dhamay dadka deegaankan degan ee magaalada Kismaayo ama guud ahaan Jubbaland degan waligooda dhulkan deganaa jireen waa joogi jireen inaha iyo in la midana uma qabsoomi jirin iyo inta hadda u qabsoontay waxay ugu qabsoontay waa dawladnimada waa sameysmay maamulkan waa dadka deegaanka jooga oo ku nool oo maxaan ku yiraahdaa hashiisi geelayd halka daaqayso oo doontiisi kalluumaysiga ee xeebta ku xiran tahay ee dukaanka yarka muxuu ahay suuqa ku haysto oo taladii wax ku lahaaday oo wax ka qabtay oo wada oo ka shaqaysiinayay ku suura gashay inta dhimanna ilaahay idankiis way suura gelaysaa marka nidaamkaas federaalka ee dalka dhan ka hana qaaday nidaamka ugu sahlan ugu dhow meesha ugu dhow ee xukunka dawladnimadu uu ku baahi karo oo dalka dhan uu ku gaari karo waa nidaamka federaalka ah hadii la yiraahdo dawladnimada madax ka nool ha noqoto oo xamar ha ka soo bilaabato oo ha gaarto ilaa law yacday iyo ilaa maxaan ku yiraahdaa raas Kamponi iyo maxaa xuduudda Kenya ilaa xaggana raas Xasayr ha gaarto hadii la yiraahdo de 30 sano ku dhawaadaan hadda yaan duruufaha gaarka ee dalka ka jira ku jirnaaye in masakalan haddana inaan xukunka meesha gaarsiino ay nagu qaadanaysaa ma garanayno marka nidaamkan federaalka annagu berigi in la dhaqan geliyo waxaan u go'aansanay horaal go'aanka loo soo gaaray in dalku federaal noqdo mar horaa la gaaray go'aankeeda annagu midaan gaarna ma waa naga horeeyay laakiin annagu inaan dhaqan gelino oo nidaamku uu shaqeeyo oo dhismo
taas waa midaan annagu aan u istaagnay sidaasaananu arkayna dalkani dawlad la'aanta iyo xukun la'aanta oo dadkii iyo dawladdii ay kala go'een ama meelaha ugu fiicanna ay kala fogaadeen sida keliya ee dawladnimada dadka loogu dhoweyn karo loo geyn karo dadka meesha ay joogaan waxay ahayday in la dhaqan geliyo waxaas Soomaaliya hore ugu soo heshiisay marka nidaamka federaalka dalal badanaa ku bulaalay kuwa badanaa ku fiican ku hagaagay tabcan hawl kastoo la sameeyaa dadna waa u hagaagay dadna waa ka xumaa kartaa waa laga yaabaa kuwa nidaamka federaalka ku guuleysan waa inay jiraan laakiin dawladaha adduunka ugu waaweyn ee ugu horumarsan ee boqolaalka sano hadda dawladnimadooda ay soo jirto nidaamkan federaalka ay ku horumareen ay ku gaareen dhaqaalaha adduunka dawladaha adduunka ugu dhaqaale badan oo dhan markaad fiiriso nidaamkooda waa federaal ha ku dhawaaqaano waxaas federaalka ah yiraahdaan ama yaanay dhihin oo magacooda ha iska joogaan laakiin waa federaal sida isu xukumaan waa xukunka qaybsan ee saddexda u qaybsan wuxuu yahay xukunka iyo talada mid u gaar ah dadka iyo dawlad goboleedyada oo aan lagu farageli karin iyo mid u gaar dawladda dhexe oo ayadana aanan lagu farageli karin iyo mid dhexe oo mar walba in laga wada tashado saanay ku roontahay la yiraahdo intaa adigu qabtay intaanan qabanayna la yiraahdo oo laga wada hadlo saddexdaas waay saddexduba marka waxay u baahan yihiin in inta laga wada xaajoodo lagu heshiiyo intaan adigay ku gaar tahay intaan anigay ii gaar tahay intaanna waa meesha dhaxo isugu imaanayno oo aan ka wada hadlayno waxaasina institutionska iyo hay'adihii kala ilaali lahaa isku ilaali lahaa oo hayn lahaana in la dhiso marka inta waxaa laga gaarayo oo nidaamkaasi uu ka adkaanayo oo ka dhaqan galayo fursadda kaliya ee furan waxay tahay in la wada hadlo oo mar walba la isu yimaado oo wixii sidee u dhisnaa ilaa kuwaas laga dhiso oo la kala cadeeyo oo lagu wada qanco oo saddexdaas la kab is saaran loo kala qaado hawshii wuxuu waa wada tashigaasi ku jirayaan wax walba la wada leeyahay ilaa inta laga fatasho laga kala saaro la yiraahdo saasay u kala saaran yihiin waa kala qaybsan yihiin wax badani dastuurkeenu uu qeexayaa uu noo kala qaybinayaa laakiin wax badan aan kala qaybsanayn badana jira ayaguna oo dastuurkii waaba qabyo ah oo aan noo dhamaystirnayn inaan dastuurka qabyo tiro oo aan dhisno oo aan hagaajino oo waxaasi aan kala qaadano ku wada qanacno wixii ka horeeyo dhan waxay nooga baahan tahay inaan dulqaad badan iyo isla joogid badan muujino marka hawsha lagu jiraa ee socota waa hawshaas bari iyo laba ku dhamaan mayso maalin ay hoos u dhacday iyo maalin ay kor u kacdabana waa leedahay marka maalma hadii ay xogaa hoos u dhacdo oo mugdi soo galo macnaheedu ma aha inay wixii dhumeen ama dhinteen ama kala waxaysmeen laakiin maalinta kale kor u kacaysaayo iftiinkeedu baxaya hadii alla yiraahdo soconaysa adduunyada dimuqraadiyadda institutions maamula deep state waxa la yiraahdo aanan qof ku xirnayn qofaa tagay iyo qofaa yimid iyo nima laga bedelay booskaas iyo gabadha halka laga loo dhiibay mas'uuliyadaas iyo aan ku xirnayn institutionska jiritaankooda ya asal u ah la yiraahdo dimuqraadiyadda annaga dibka kaliya naasto waxay institutionska wali aan noo xoogaysanin nooma xoogaysan institutionska marka dimuqraadiyadeenu waxay ku salaysan tahay waa dimuqraadiyadda wada xaajoodka ku dhisan dimuqraadiyadda wada xaajoodka iyo wada tashiga ku dhisan waay oo inaan la isdhibsan maanta hadii wax la isla garan waayo in la madlado la yiraahdo bal waa aan soo kala tashanay maalin hebel aan isku nimaado la yiraahdo waxyaabaha basigaana la sabab laakiin waxa asalka u ah waxay tahay in la isku kalsoonaan la isna aamino annaga dalka dhibaatada ka jirta waxa waaye kala aamin bixi dhacay bari burburkii sababay wali mujtamaca waa ku dhex jira dadka Soomaalida in badan oo kamida ayaga kala aamin baxsan dhaxdooda kuwana dawladnimaday ka aamin baxsan yihiin oo ay shaki ka qabaan oo dawlad xoog badan oo dadka dilaysa oo dadka barakicinaysa oo dadka waxaynaysa way aragnimo ah ayaan leenahay inteena da'doodu ay gaarsiisay marka cabsidaasina wali way jirtaa oo arma maxaa anima berigi dagaaladii sokeeyay dalka ka socdayna la yiri wiil geelish ilaashanaya la soo bax magaaladii xamar ayada la iska raba maxaa jira
madaxweynaha la difaacay hal yiri maya horta waxa la yiri madaxweynaha dadkii dhibaa jooga madaxweynaha la ridaa hal yiri waa soo baxay qorgiisa soo qaatay geelu ka soo tagay xamar oo yimid dagaalkii dawladda lagu ridaa oo ka qayb galay dawladdu waa dhacday markii la iska noqday baadi geeliisi u noqday muddo markii la joogaa loo yiri soo baxay bal soo bax qorgaaga soo qaad maxaa jira madaxweynaha la difaacaya oo sootaan maanta dhaw soo ridno maxaa hadana loo difaacaya marka dawladnimada intaas ay marka u dhaxaysaa marka waxaan u baahanahay dadkeenu korkiisu waa wada boogo haddii dawlad dhexe la yahay iyo haddii dawlad hoose maamul goboleed la yahayba si isku mid ah in dadka loo ilaaliyo oo aan boogaha la dhiijin oo aan la xoqin oo aan la danqin oo waxay u baahan tahay muxuu ahaaye la saraaxo ilaa nidaamkaasi marka uu nooga dhammaanayo oo aan ka xoogaysanayno muxuu ahaay walaalow iyo maxay kula tahay maxaad dhihi lahayd yaa ay talada ay ku habboon tahay waana ku soo caana maallay haddana kama fursan doonno waana ku jirnaayo waa socotaa marka taasi marka ma aha dadka siyaasadda dawladda dhexe ku mashquulsan kaliya lagama rabo idinkaa laydinka rabaa dadka maamul goboleedyada jooga laftooda walaalowdaas ayaga laftooda yaa laga rabaa dabcan nimanka nabadiidka ee dalka dhibaato badan ku haya way jiraan laakiin ballantu waxay ahayday xukunka iyo awoodda in caasimadda un laga soo qaado ee caasimada yaryar oo kale la keeno ma ahayn in hoos loo sii dejiyay ahay oo degmada iyo tuulada iyo dawladda yani nuxurka xigmadda waxay ahayday dawladnimada dadka ha loo dhaweeyo marka dawladnimada haddii weli Kismaayo iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo Dhuusamareeb iyo muxuu ahaay Garowe iyo ay joogto kaliya weli dadku uma dhawa intii hore way uga dhawdaa laakiin weli uma dhawa marka in nimankan dalka laga xoreeyo dawladnimadana dadka loo geeyo oo degmada la geeyo oo tuulada la geeyo oo ceelka geelashu ay ka cabayaan la geeyo waaye talada iyo dawladnimada iyo waxa aruuf arintii loogama roona la yiri dad walba oo deegaan degan intay doonaan ha ahaadaan taladooda ayaga loogama roona in lagu kalsoonaado oo wixii ka dhimanna loo dhameystiro oo wixii maxaan ku raraa farsamaha ee ka dhiman la siiyo la empower gareeyo ee la geeyo u baahan tahay ilaahay idankiis waana ku socotaa taladu sidaas marka waxaan rabnaa in marka hore aan maskaxda inta aan ku hayn marka horeba yani wixii dhulka lagu guntada garabka la saartaa Soomaalidu kuma baada hadaadan dhulka ku guntan oo dhisa waxaan qaadayaa tiraa oo aad garabka saarato mid hore u dhaca iyo mid gadaal u dhaca iyo mid garabka ka muda ayay naqanayaan laakiin wuxuu markay isku toosan yihiin oo dhulka lagu soo xirxiro waa la qaadi karaa dawladnimaduna waa sida marka inta laga wada tashado wax la isku raaco ee la qoro ee la ansixiyo la isla ogolaado dhaqangelinteedu way sahlan tahay aad u sahlanaanay in la dhaqangeliyo marka mar walba arintaas wada tashiga iyo isla tashiga iyo isqadarinta ah oo qofku hadii uu qayliyo oo xanaaqo oo muxuu ahay caroodo macnaheedu inuu xun yahay ma aha qofkaas inuu xun yahay ma aha laakiin asbaabta ka caraysiisay aday mas'uuliyad ku saaran tahay inaad baabiisid Soomaalida burburkii kadib waa kala cararay dibadaan aadnay ajnabiga aad inta ka keen xagga ka keen ilaa maanta joognaa taariikhda dib u fikira dib u xasuusta nin kasto Soomaali ah ama koox kasto Soomaali ah oo carartay oo ajnabiga maceen biday nin kale Soomaali ah bay ka cararaysay iskama cararay qof kale Soomaali ama koox kale Soomaali ama reer hebel kale oo Soomaali ah ay ka cararayeen inay ajnabiga magan galaan iyo inay ajnabiga isku xoojiyaan ay soo wataan intaba waxa keenayay ka cararid oo adiga ka cararay waxa ugu fiican marka talada ugu fiican waxay tahay ninka walaalka ee Soomaaliga inaanu ka cararin hadduu ka cararo cid uu soo wata ma waayo laana cadow badan ee Soomaaliya leedahay marka cid uu soo wato oo fursad ba hesha ma waayo laakiin hadii la waayata fargelintu way naga yaraanay dhibkana la dhibayo iyo muxuu ahaan qaltaaga nala soo hanqal taagayo
uu naga yaraanaya marka waana soo tijaabinay waan soo aragnay waana ku soo guulaysanay in haddii la isku nuglaado oo la isdhegaysto oo maxaan ku rahaa maxaad dhibsatay dadka la yiraahdo in aanay kala cararaynin ay joogayaan isla joogayaan isla fariisanayaan waxaan soo maray waayo hal arin in aan 7 maalmood doodeeda lagu jiro oo la iskula booqo oo la isku qayliyo oo la isqabqabsado oo 7 maalmood markay marayso xal u weynay aan ila bal tan dib noogu dhiga tan ka warramo tawa fiicantahay intii fiicnad in aan ta ku shiinaan tan aan isaga soo noqon markii dambe oo la isaga soo noqdayna waa socota ayadana waa laga heshiiyay laana dadka dhimirkooda soo dagay casaabtooda iyo xanaaq iyo caradi markii ay soo degto qof walba wuxuu shalay uu yiri iyo kalmadihii adadka oo isticmaalay iyo wixii oo dhan uu ka qoomameynaya qofku marka asigoon qofkii ahayn uu ku iimaanaya biri oo wixii aqbalayo oo qaadanayo oo asagana dabcan in laga aqbalo ay tahay wixii marka waxaan rabnaa inaan ogaano dadkeenu inay boogahaas leeyihiin wax soo haray inaanan noqonin dad ahdaafta ama eventiska ama xaaladuhu dad ay hogaamiyaan oo maalin walba xaalad cusub inta timaado xaaladaas lagu mashquul xaaladuhuna waxay caam ku yihiin waa tagaan joogto ma ah waa tagayaan markii xaaladii ka tagto bariyo waqti ka qaado oo mid kale cusub hadana ay timaado oo bariyo kale waqti ka qaado meeshana waxa yaalo wax aanan tagayn oo maalin walba ku hor yaalo oo qadaayaad waaweyn ah oo ummadan iyo masiirkeeda aad u qoseeyaan yaalo xaaladuhu marka waxay ka mashquulinayaan oo waqtigii aad qadaayaadkaas waaweyn ee masiiriga aad ku mashquul lahayd ayay ka mashquulinayaan ka qaadayaan kuwii waaweynaana ma tagayaan waa soo taagan yihiin hadda xaq u sii jeestana waa taagan yihiin hadda inta soo jeestana waa taagan yihiin marka in xaaladuhu aanayna hogaaminin mar walba qadiyadaha intooda masiiriga ayna hogaamiso Soomaaliya oo dhanna xaaladuhu way taabanayaan ma kala harayso haddii qalalaasa ka jiro siyaasadeed ma aha mid colaadeed si bay noo wada taaban mesela dawladda dhexe waayo dawladda dhexe waa dadkii deegaankan iyo deegaankaas iyo deegaanka kale ka yimiday waayo dawladda dhexe xildhibaan ayaga ah wasiir ayaga ah madaxweyne ayaga ah prime minister ayaga ah nin cirka ka soo degay ma jiro nin walba deegaan Soomaaliya ka tirsan oo ka yimid waana dhacday oo deegaan kasto Soomaali ah marka la deegaameeyo Soomaalida lafteeda deegaanmadaas oo dhan waa qabiiloobayaan oo deegaan kasta qabaa'il gaar ah ayaa degan hal qabiilo Soomaaliya oo dhan wada degan ma jiro hadduu jirana meelna waa ku yaryahay meelna waa ku badan yahay marka aad uma kala saara marka dawladda dhexe waxay ka tirsan tahay waxa raad ku leh dawlad goboleedyada iyo deegaanadaas laana dadkan marka wixii dawladda dhexe yaalo halkan way imaanayaan way khuseynayaan way taabanayaan dood halkan way imaanaysaa dadka halkan joogahay wuxuu qaadanayaa mawaaqif uu qaadanayaa kala duwan oo qaarba meel ah marka waxay tahay inaan ahdaasta ama muxuu ahaay xaaladahu inaanayna hogaamin qadiyadaha masiiriga ah ee ummadan mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda hagaajinaya inayna hogaamiyaan waay oo ay muxuu ahaay hor kacaan muxuu ahaay si taariikhi ah hadaan مثال aan soo qaado dalka waad la wada socotaane waxaan soo maray bariyo aan ku mashquulsanayn nin odayaho la yiraahdo qalbi dhagax idaacadaad furto iyo Facebook aad fiiriso iyo maxaan ku iraadaa telefishinka aad daarto qalbi dhagax laga hadlayay waa sax waa qalad dambi waa inta laga dhacay dood meeshaas taagnay maalin kala la ku soo xigtay oo hadana laga hadlayay gudoomiye Jawaari la bedelaya saana loo bedelaya waa sax looma bedeli karo waa qalad waa saan biladan ayaa ayadana lagu mashquulsanaa oo howl kale aan la qabsanin maalmo kana soo gaaray oo barbara iyo DB World iyo adduunyo kale ayadana lagu mashquulsanaa oo baarlamaanka ayada ka hadlayay oo golaha wasiiradu ayada ay ka hadlayeen oo idaacadaha
degmooyinka gobollada ku yaalla ay ka hadlayeen maalinba meelaa marka yaa laga hadlayay maanta qalbi dhagax sheekadiis ma taagna arrin laga hadlo maanta ma ahan gudoomiye jawaariya la bedelayaana arrin laga hadlo ma aha maanta waa dhammaatay waa tagtay xaalad inay tahay taasaa dilo xaaladuhu joogta ma aha way tagaan laakiin maxaa noo hor yaallo oo intaan ku mashquulsaneen qalbi dhagax iyo jawaari iyo DB World iyo kuwa kaloo fara badan maxaa noo yiilay dib u eegista constitutionka waa noo tiilay welina waa taallaa amniga dalkan in wax laga bedelo oo la hagaajiyo oo mar walba talo loo lahaado loo xoog iyo xoolo wixii lahayd la isugu geeyo waa taagneeda weli waa taagan tahay garsoorka dalka in la hagaajiyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxa ka dhaxeeya xeerarka isku haynaya ka dhaxeeya in la hagaajiyo shalana waa taagneed maantana weli waa taagan tahay dastuurka ku leedahay doorashooyinka iyo nidaamka doorashada iyo xeerka doorashada waa taagnaa welina waa taagan yahay marka inaan kuwa ka shaqeynay ahayn waqtigii meelahaasuu naga aaday ayagiina weli waa taagan yihiin oo wax kama qabsoomin weli marka qaarkood waxaan u baahannahay inaan dhabarka iska taabanno dhahno warheedhaye noo dhiga waxa inaan ku mashquulno ay tahay inaan noo kala caddaadaan dowladda dhexe oo keliya ma ahe halkanna qadiyada sidaas ahaa jira amniga maanu halkan quseyn Jubbaland amnigeeda wax badanaa ka dhiman soo maaha oo deegaanada ka dhiman oo cadowgiyaan meel dheer jirin oo maxaan ku raafar 24 saac la hor taagan yahay oo lagu mashquulsan yahay waa sidaas nidaamkii dawlad dhisidda garsoorka maxuu ahaay habka maxaan ku iraahday qawaaniinta inta aan sheegayno dastuur leh oo nidaam doorasho leh oo nidaam garsoor leh halkaana waa xaajo u taalo waa garsoorka dalka iyo amniga dalka iyo dib u eegista constitutionka reer Puntland reer Jubbaland haddii intay fariistaan ayagu la sidooda aanay mowqif yeelan oo aanay isku qancinin oo dastuurkan maxaa bedel u baahan inta u baahan annaga maxaa nagala gudboon saan in loo bedela aan nagala gudboon aanay dhihin barra loo imaanaya ayagoon diyaar ahayn alle hay dastuurkii waa kan halkaan la marsinay maxay idan la tahay saac waqti badan ma haysanay sidaan ahayd waa la dhaafay mar dabbo wixii la sameeyay annaga kaas raali kama ahayn laana waqti fiican oo uga baaraan degtood waqti ma badsiin marka waxaan qabaa qadiyadaha waqti hal la siiyo xaaladaha ayaan waqti badan la siin qadiyadaha waqti hal la siiyo baan dhaweeto wiilal dhalinyaraha carooday oo qoryo qaatay oo nin nabadoon ay dileen oo xaggay ka dhaceen saacadaha iyo maalmaha idaacaduhu wadwadeen wax la wadwada ma ahayn laana meesha nidaam iyo maamul iyo tala ka jirto muxuu ahaay meel maxaan ku iraahday ma ah waana markii dambe waxaynu ku dhamaatay nidaamkii dawladnimada iyo maamulkii iyo taladii sida ay ahayd saxdeed marka ahdaafta noocaasa xaaladaha noocaasa inaan waqtiga ka qaadin dawladda dhexe laga sugayaa dastuurkii iyo nidaamka garsoorka iyo nidaamka amniga iyo nidaamka maxaan ku iraahday maaliyadda dad ka dhaxayso iyo nidaamka maxaan ku iraahday awood qaybsiga iyo nidaamka maxaan ku iraahday khayraadka iyo maxaa sida loo qaybsan lahaa ma idinka lidinka sugaya adinka idin qusaysa laana dawladda dhexe inta meel fariisata ay kaligeed wax iska qoranayso ina mawaaqif kaleedihiin waxaasoo adinku dhaxdiina waqti geliseen oo aad ka doodeen oo dastuurka soo qaadateen oo aad fiiriseen oo aad leedihiin iyo kaas muxuu ahay Soomaalida dhan ka dhaxay isu fiirisaan mis waafaqsiin mis waa kala gidin laana bari waalidii imaana dastuurkiina meeshaan uu ka qaldan yahay bedela dastuurka qaranka ma waafaqsanee marka aan leeyahay reer Puntland Soomaaliyo dhan aan leeyahay reer Jubbaland raaliga hada reer Jubbaland waxaan leeyahay Soomaaliyo dhan aan leeyahay waqti hal geliyo qadiyadaha xaaladaha ayaan waqti la gelin intaas dadka Soomaaliyo dhan inuu wada taalo waaye meel kasto aan tagana dalka waa soo wada marayaaye waa intaas waa ka dhihi doona waxaana haboon adduunyadu waa 3 maalmood waa shalay oo ka tagtay iyo maanta aad joogtid iyo berri hadii alla yiraahdo soo socota shalay waaya aragnimo ka qaado ee wax ka baro ayay leedahay
wax kale oo ay leedahay male laana waaba tagtay moogtahay soo noqon mayso laakiin maxaa dhacay wixii khaldamayna hala saxo wixii noo fiicnayna aan sii xoojino war meeshaan ku kufnay ayaan mar kale ku kufnay aan ka gudubno war wadadii xirnayd oo intaan raacnay ayadoo xiran aan ku tagna waaye yaanan mar kale qaadin shalay sidaas ay leedahay maantana waxay leedahay u diyaar garow berri waxa fiican oo aad berri inay dhacaan aad rabtid inaad u diyaar garowdid ayay leedahay maanta haddii kale maanta shalay noqonay berri haddana shalay noqonay maalinta ka dambaysa shalay noqonay marka aan aad diiradeenna aan u saaro berri Soomaaliya fiican ee qalbiga noogu wada qoran ee aan jeclaan lahayn inaan aragno sidaan ku heli lahayn aan ku mashquulno 1960kii ayaa Soomaaliya ay dawlad noqotay ilaa 90kii Soomaaliya dal qaran ah oo la yaqaano adduunyadu aqbalsan tahay yaan ahayn waa 30 sano 90kii dhibaato dhacday burbura dhacay heerar kala duwan la soo maray 2020 waa 30 sano kale burburka kadib oo marba xaalad dagaal sokay mar socday dawladdu ku meel gaar maran soo ahayn maran muxuu ahay ku meel gaarnimadii ka baxnay maran federalismka dhaqan gelin oo maamuladii noo dhismeen marba heeran soo mareen oo mar walba horumaran soo gaarayno waa soo soconay intaas in ka badan aan jeclaan 30 sanana intaas in ka badan lagu gaariya laakiin 2020 oo teeramka dawladda hadda jirta ah waa 30 sano kale intiina meesha fadhida yaa maalin ama habeen meel gaar inta fariistay ee ku fikiray 30 sano kale kadib Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa 2050 taariikhdu markay gaarto Soomaaliya saan rabnaa inay u ekaato haddii aanan noo sawirnayn 2050 Soomaaliyada aan rabno waa dhibtoonaynaa aad iyo aad ayaan u dhibtoonaynaa لأن صدّن كان سنة 2020 naga dhamaanayso meesha aan gaaraynahay meel ka fiican inaan gaarnaan jeclayn soddonka sano inta dadaal iyo ord iyo maalin walba meel ku shir iyo maalin walba dagaal Soomaaliya kamid ah deg dawladii hala soo guuriyo joor hala dajiyo laga soo wada baydhaba hala geeyo laga soo wada xamar hala keeno laga sii wada Kismaayo hala geeyo maalin baan soo gaarin laakiin in badan oo annaga naga mid ah dadkeena da'da iyo cimriga uu Ilaahay gaarsiiyay waxaan aaminsanahay 30 sano waxa noo qabsoomay wax ka badan noo qabsoomi karay qadartu ma ayna noqon ma dhicin laakiin haddana dadaal yari dhinaceena ana way dugsantahay sababta ugu weyn noo dugsaneedna waxay ahayd meel wax noo calaamaysan oo hiigsanaynahay ma jirin Soomaaliya noo sawiran oo qaabaynay oo intaan ka ballanay aan ku heshiinay oo aan dhahnay nin orod ku roon nin aayad ku roon alla ya awrti war ninkii ku roon muxuu ahay tala iyo kii xoog ku roon kii dhaqaale abuuri karaba Soomaaliyadaasaan rabnaa saa u taalo inaan gaarno wadiiqada aan ku gaari karno iyo wadada aan ku gaari karno waa midda aan qaadno inta badan ma aanan dhihin hadda marka wali 30 sano umriga ummadaha 30 sano waa wax yar aad u yar waay umriga qofka bini'aadamka waa ku badan tahay laakiin umriga ummadaha 30 sano waa yar tahay waxaan u baahanahay marka inaan sawirno maanta oo waliba dadka mas'uuliyadda hayahay ay sawiraan oo ay dadka ka dhaadhiciyaan oo ay dadka ku qanciyaan meesha loo socdaay waa meeshaas 1940 nimankii SYL ahaa ee 15 wiil ahaa wixii ay sameeyeen yaa wali naga maqan nimankaasi waxay sawireen Soomaaliya xor ah gumaysigii ka tagay iyadu isxukunta madax bannaan dawladaha adduunka jira ka tirsan inay noqoto Soomaaliya sawireen dadkina waa ka dhaadhiciyeen markaasay u sheegeen wadada la maray waa wadadaas caqabadaha iyo cadawga aad leedihiin waa waxaas ma aha oo kaliya gaalka caday gumaysiga ah la raacdaynaya dadka waxay ka dhaadhiceen kamid ahay qabiilka caqabad idinku ah haddaad qabiilka ka guuri weydaan ama ka inda qabsan weydaan
meeshaas ma gaaraysaan dowladnimada